gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee xisbiga maxaafadka ee kulmiye mujaahid maxamed kaahin axmed iyo wafdi ballaadhan uu hogaaminayo oo kamid ahaa wasiiru dowlaha wasaaradda maaliyadda Soomaaliland Yuusuf Xasan Omal Yucboole iyo xubno qorbojoog oo ka tirsan xisbiga kulmiye ayaa kala qayb galay munaasabadaha shucuurtooda taageero ay ku muujinayeen taageerayaasha ku sugnaa deegaanada kala ah degmada Nasiye, deegaanka Libaaxle, deegaanka Jaamac Qabar, degmada Dhoqoshay, deegaanka Dhagaxdheer, deegaanka Dharyaley, degmada Baledhig, deegaanka Coodale, degmada Qorlugud. safarkan oo qaatay muddo dheer oo ahaa baxda iyo dhacdo ayaa taageerayaasha ku sugnaa deegaanadaasi oo ku labisnaa astaanta xisbiga kulmiye ay afafka hore deegaanadaasi ku soo dhaweynayeen gudoomiyaha iyo waftigiisa iyagoo watay fardo iyo gaadiid tiro badan. mas'uuliyiinta xisbiga kulmiye ee deegaanadaasi iyo mas'uuliyiinta degmooyinka iyo cuqaal iyo waxgarad ayaa hadallo soo dhaweynah iyo taageerada u hayaan xisbiga kulmiye deegaanadaasi ka soo jeediyay waxaana hadaladoodii kamid ahaa hogaaminayo gudoomiye ku-xigeenka xisbiga kulmiye maxamed kaahin axmed aad baan u soo dhaweynaynaa ku soo dhawow magaaladaadii ku soo dhawow degmadaadii dagaalka ku noolina siduu yahay soo arko xisbigan siduu ka yahayna soo arko ayaa inala jooga oo innaga inoo socday oo aan cid kale safarkaa dheer u soo gelin 16 November codkaynu siinaynaa guushana yaale kulmiye guul haddii aanu deegaanka coodan la warbixintiisa ku siino waxaanu kuu sheegaynaa in ceelkani uu kulmiye yahay war kulmiye soo ma nihin waxa aad gudoomiye aad ku rixi qabowsanaysaa ceelka wax kala baydhsan male ceelkani waa kulmiye u taagnaayeen inay ku soo dhaweeyaan bay aad u dareynayeen waad aragtaa shucuurtooda sidii bay u taagan yihiin gudoomiye soo dhawow ku soo dhawow dabada Qorlugud waa dalkaagii waa dadkaagii ugu dambeyntii mujaahid maxamed kaahin axmed gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee xisbiga kulmiye ayaa bulshada deegaanadaasi u marayay uga mahadnaqay soo dhaweynta ballaadhan ay u sameeyeen isagoona ugu baaqay inay codkooda siiyaan murashaxiinta u tartamaya xisbiga maxaafadka ee kulmiye sidoo kalena dhaliilo u soo jeediyey xisbiga mucaaradka ee wadani 13 bishana waa doorashadii waxa qura aynu ku ballamaynaa waxa weeye haddii aynu nahay kulmiye maanta dabaaldegii kulmiye madaxweyne axmed siilaanyo wuxuu ku khatimay caasimadda oo uu ka qayb galay dardaarankiisii iyo ballantiisiina halkaasuu ka dhiibay dardaarankiisuna waxa weeye bahweyntii kulmiye inay codkooda siiyaan muuse biixi cabdi carqaladaynaya ee Soomaaliya ee Muqdisho xisbiga wadanina soo warbaahinta kamaydaan arkaynin in looga dabaaldegayo xisbiga wadani oo maanaka u sameynay in dadka looga soo dabaaldego sababtu waxa weeye waxa ay qabaan midnimadii Soomaaliya waxa ay ku soo noqon kartaa in xisbiga wadani hoggaanka qabto Cabdiraxmaan Cirre madaxweyne noqdo dabadeedna Soomaaliya dib leedin ku celiyo arrimaha noocaasa waxaa lagama maarmaana dadkan taariikhda ku soo abtirsaday dadkan halganka muddada dheer ku soo jiray dadkii 20 sannadood 1969 ilaa 1990 talisyada horarkii ay cadaadinayeen ee xorriyadoodii imika la soo noqday ay nimada halkaa taagan 24 jirka 25 jirkii aanay Soomaaliya aqoonin inay ilaalisaan xuquuqdiina iyo xaqiina iyo qarannimadiina waa yalla xasan salabaan ayaa la BMTV-ga caalamiga Somali News magaalada Burco.